بسم الله الرحمن الرحيم waxaan xadhiga jarkii xafladda masaajidkan iyo madrasadan kabanta ayaan xadhiga ka jaraynaa masaajidka loogu magac daray Cawaale Cilmi xadhiga ayaan ka jaraynaa biidnillaahi kariim maanta oo taariikhdu ay tahay sanadkii 2020ka oo waafaqsan 1442 afwan ayaan xadhiga ka jaraynaa waxa weeye waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro cid kasta oo wax ku darsatay dadka soo qaban qaabiyay hawshan ee barnaamijkan fiican ee diiniga ah soo sameeyay Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro dadka jabantana Allah ku anfaco masaajidkana ha ka dhigtaan mid ay maxaan ku idhaahdaa ay ku cibaadaystaan macmad rabbi loogu cibaadaysto waa inuu noqdo oo uusan noqonin bakhaar ama xeero xoolaha lagu xereeyo waxa weeye haddii aad ka dhigataan xeero xoolaha lagu xereeyo mucjiso ayuu inagu noqonayaa ama xujo waxa weeye maantana xadhiga jirkiisii ayaan u kulannay dhammaan darifaha degmada Dambaleed aan iskaga imanay iyo qurbaha dhammaan qurba joogta cid kasta oo masaajidkan fiidiyogan iyo hawlahan aragtaana waxaan ka codsanaynaa in hawlahan oo kale lagaga daydo cidda barnaamijkan fulisayna waxaanu ka codsanaynaa inayna hawshoodu noqonin tii u horeysay iyo tii u dambeysay midna oo halka ay ka sii wadaan biidnillaahi kariim بسم الله الرحمن الرحيم إن كل يدعى واللي يكون علينا حصل إن ير ولا يقول بجوكته أو جسوق من قابسنا إلى كابا المريو أنت نيجي كذا كوبنانيني ما لا بدن بيباهي كجرتها ده تيم الدين هذه هذه كلامه إنهم بدهم لقبتان تذكر ويان يجوا مقنعين يجوا جوجان وحلا لقبته عدوا على لقبته عدوا على لقبتينا وحلا لقى فايديستو سيد الله قلت لك علي لحج على هذا دريمه أنا الله يراشده عبادة الله قلت لك علي الله قلت لك عبادة له فريو الدين الله قلت لك له فريو حد الله كلاء يصنع مركز الله قلت لك علينا سيد الله قلت لك لقى فايديستو أدبدوا مع سنتين أبي لا التوفيق قدام عن مناسبة مانتا لقوها يو جبنتا مساجدك هي مدرسة مقعد لنا Cawaale Cilmi حركة laga jarayo oo u dhayihiin dhamaan gudoomiyihii degmada iyo xubnihii badnaa la socday iyo qurbo joogta dadweynaha ka soo qayb galay dhamaanba waa soo dhaweynayna waxa ku soo dhaweynayaa 99 sano Ilaahay inta kadib meeshan waxa la yiraahdaa jabanta ama kabanta inba sida u yaqaan waxa dhibaato ah waxa ka jira biyo la'aan ilaa maantadan aan joogno xareed baan cabaynay bakrido waa naga go'een Ilaahay waxaad noo baridaan inuu Ilaahay biyo nasiyo ama roobaad ama ku dooleeytaba yaan idinka codsanaynaa waftiga isku yimid meesha dadka meesha jooga ee qabalaha ka tirsana si fiican oo soo dhaweeyaan baan leenahay waxaan kaloon masaajidkan maanta iyo madrasadan ka dhan muxuu ahaan maanta aan xarig ka jarnay fadliga Ilaahay asaaskayga waxa lahaa iyo awalan dadka magaalada Kamanta jooga horta fikirka lahaa oo horeeyaanba Caaji Ciise oo runtii jazaahullahu khayran oo maanta inaga maqanay Cabdullaahi Aadan iyo Ibraahim Cismaan ay ahaadeen iyo dadka kale muxuu ahaa degan annaguna waxaan ahayn kalkaaliyaal baan ahayn insha Allah ta'ala munaasabada runtii markaan anaga dareen ay arkeen iyo wax qabsanaya nin wax loogu daraa markaasaan isku dayna annaguna maadaama dugaankan inaan ahayn dadkii amba muxuu ahaa u dhashan ahayn amba qurjoog ahaado inaan dadka caawino runtii sayr iyo socod badan baan soo qaadnay aniga walaalaha iyo tiimka kale la shaqeynayay walaalaha Yaasin iyo Cabdullaahi Xasan iyo Dr. Yaab ay ahaayeen muddo dheer iyo shood dheer baan soo qaadnay marka waxaan kale u celeynaa abaal oo la xirnay dadka daafaha jooga ee ahaa UK amba joogaan qurbo joogta Australia joogaan iyo Khaliij Arab amba Scandinavia joogaan muxuu America ama Canada ay ku joogaan qurbo joogta ayaan horta mahad Ilaahay jalla wa ala masaajidka dhismihiisa lahaa dadka deegaanka $4,000 oo kale asaas uma lahaayeen masaajidka waxa ku dhacay ku kacay takaliifta ku baxay waxaayeen $630 iyo $630 iyo aduu ilaa 60 buuqyaan ku soo diyaarsaday runtii baabuurkii jabay baa iga yimidaan kaga haray marka si daraadeed lacagta inta dhagay baxada leeg annana waxaan isku dan Ilaahay jalla wa ala ayuu waafajiyay inaan u maamulo oo shilinkii lagu talagalay aan ku bixino waxaan codkay gaarsiinayaa maanta walaalihii qurbo joogtaha ee xoolahooda la soo baxsaday maanta inay arkayaan mudahoogi iyo mas'uuliyiintii deegaankan
ay maanta ay joogaan inay mudhahoogii oo maanta ay baratical oo calaamaliya u arkayaan waxaan ilaahay jazaakum allahu khayran xoolaha soo baxdeen maanta ilaahay inaga abaalmariyaan ilaahay wax lagu bixiyo wax ugu khayr badan bayd ilaahay iyo madrasada waayo maadaama muslimiin nahay dadkii muslimiinta hore waxay awliyaadka saari jireen inaan meelaha muwasaadka maxadin tarbawiya meelaha lagu cibaadeyso muxuu masaajida iyo madrasadaha ay ubadkii lagu tarbiyanayo ay awood saari jireen maadaama magaalada hay'ad awal masaajid bila madrasad hadu dhisteen waxaan ilaahay xoolihiini maanta waa inaka arkaya jazaakum allah khairan ana runtii jeclaa inaan magaciisana sheego laakiin magaci oo waqti oo gaaban runtii haddana ima saamaxayo waliba wax kale oo ammaan leh runtii gabadha hortaba fikirkan lahayd 8 sanadood iyadoo masaajid awlalka ka dhisanay madrasa ka dhisnayn lacag ku bixinaysa marka oo Faadimo Cawaale cilmi kayd oo aabaheed ilaahay rahmatullahi alayhi Cawaale cilmi cadaawi u niyootay ilaahay ma taqaana waxaan la fikirkaaga waxaan leenahay iyo maanta ilaahay waa ka murahe muxuu arkayso kaliya waxaan isku daynay madaariis marka la dhisiyo masaajida cidla lagama tago waxaan keenay جزاه الله خيرا نندل يرى أو كسب حي جامعة الإفريقية العالمية وجامعة الشيخ جمال قمني إسماعيل ورين متعلمة وبقول قف ومحو عربي عجب التحانك وقلي وكو قسمني إنه دقمدو دي ولا مقدر شيء أو يمادو وما أنت ينلجوا قرآن كانوا أخري وحن له ويسيرك وقام دقمدنا وحن له هي ما دام قدومه وقفت مسؤول حكاية هاي دينته إنه محوها أي كور هيان أيان لهي رنتي وحن كسر قبنا ينو احتياجاتك باهيدا يدا maanta ka dijirta ayaan ku soo gaabanaya magaalada inta leeg ee muxuu ah santara ee maanta Araabi u dhigantay oo 2 santar ba deegaan ku yaala waa Araabi iyo Jamanta waxa weeyaan mushkilada koobaad waxa weeyaan biyalaan weeyaan waa qarnigii 12aad maali ama abaaro ka dhaceen wadanada muxuu lagu haya ka dhaceen culimada Soomaalida waxa lagu yiri dadka Carabaha joogay amba America amba Canada waxay ku yiraahdeen qarnigii 12aad iyo gaajo loo dhimanayay waa macquul ma ahan bay kalluun ma lahayn baa leeydi laakiin maanta macquul ma aha qarnigii 12aad inay magaalada inta leego santarkii bilaabiya noqoto oo dadku xareed iyo muraxalad ka cabaan runtii aqlina ma noqon karto waxaan mas'uuliyiinta aan degmada faraya gudoomiyii Sheekh Cabdullaahi kulli waa nin sheekha oo mucaarifan u leeyahay jazaahullahu khayran oo dadaal badan oo nabadgelyo jecel mas'uuliyiinta degmada iyo muxuu hoggaanka nabadgelyada iyo mas'uulka waqafta waxaan leeyahay geed dheer iyo geed gaaban waxaan inuu kortaan magaalada say bay u helaydeen waxaan ku soo gaaganayaa jazaakumullahu aan sheegno waxa weeyaan halka masaajidku maanta ka dhisan yahay maantii aan dhagax dhigayna aniga Xuseen Ismaaciil dhagax madow oo raas madow bay ahayd xitaa meel ciid lama ahlayn raas madow oo dhagax madow ayay ahayd maantana ilaahay alxamdiga maantii aan dhagax dhigaynaa raasada madow bay ilaahay alxamdiga maantana waa ka masaajidka ee madrasada nooga dhisan markaan hawsha aan bilaabaynin waxa leeyahay wax qorsho noo diyaar ah ma jirin laakiin maxaan ku raadayay ilaahay baan tala saaranaynay maadaama bayd ilaahay yahay walaalaha muxsiniintuna baydka ilaahay iyo waxa khayrka ay ku fiicayeen ilaahay baa dhisay baan walaalaha ugu soo dhiibay muslimiinta sidii baan ku dhagax dhignay ka bacdi waan hawl galay inta markaan hawl galay waxa ka horeysay inta waan soo dhaaf bilaadmiga marka tiraa waxbaan haystaa ayaa wax lagu dari karaa laakiin haddaad hindise iyo fikir una maxaan ku hadal una la soo joogsato oo tiraahdo muxuu ahaa tiraahdo muxuu ahaa waxa la qabto oo adigu waxba la iman weydo iyo marka adigu waxa la timaado waa laba arrimood oo kala duwan khayr Allah siiyo saddex nin oo halka magaalada jooga xoolo urusay deegaanka oo dhan ka urushay xoolihi urushan adiga urushan lacag $4,000 bay noqotay iyagoo $40,000 hayay noo yimaadeen boorbaydaan magaaladan lacag baan ka ureynaa kale nala gala markaas aan hadda $4,000 haysaad fiicantiina iska daayo anaga ay nimanoo sidii baan aniga Xuseen dhagax ku dhigno ka bacdi maxaan ku raay naqshad iyo waxba sameynay qiimeyn lacagtii waa badatay anaga hawshii la rogan bay maxaan ku raay haddana qorshe kale aan uga duurnay waxaan nidhi kun xabo 2-3 jaajuura samaysto taaga markaas halka daaqada gaarsiisan iyaan maxaan ku raay lambaraan sameynay kaaraan sameynay sidii baan maxaan ku raay aan iclaan u sameynay walaalaha islaamka ana maxaan ku raay haday gudatay haday deebta cid walba u bandhig sidii baan hawsha ku bilownay ilaahay baan nala qabtay maantana waxa noo dhiban
وإلهي مهدي مرادي مساعد كي محن كلها مدرسة دي ما تانو دم يستري وحكان نوقد دمان ولي وحبار دمان مركا وهو الرئيس ولا لها محسنين تهدى مجودا هجوجان أما دبت هجوجان يعني هرتال كانوا جم هذا علنا وحقبت كيا قبتين وحموغدا والله أركي إنه يهاي مانت يعني هرتا ولا لها محسنين تهدى جودا هجوجان يهدى دبت هجوجان بارتو ما نقينا ومركا وهو الرئيس إلهي بقى محله وحارا نوردبان ولي باهدي ولي ويتاجن تاي وحير بقى نوردبان تيركي ما دام ماشي طولة تاي وحول الجوجان والمجال وين هين وحوبها أنت واحد ديركي كيلا إلا حولها إيه برنده إيه بركدي بيه أنت طبعا نوردبان ونقعد صرنا ولا لا محسنين تاي مركو الله صباحي باهدي إيمك تاجن نوردبان أنت تاي tii noloshii aasaaskee koowaad ee biyaha iyadna way taagan tahay kolley guddoomiyihii degmada ay nala jooga taa guddoomiyaha degmada ayaa noo xil saaran haddayna meesha biyo jireen maxaan ku dhahay kabanta dhoqole waxa weeyaan waa center araabi bay la siman tahay qabaleeyo dhan bay xukuntaa magaaladu intaa way ka weynaan lahayd waxa looga kala yaacay waa biyo la'aanta meeshu mar haddayna biyo lahaynna dee waxa weeyaan magaalinimadeeda waxbaa ka dhiban waa noloshii koowaad aasaaskuna biyo marka taana guddoomiyaha faraynaa kolley inuu geed dheer gaaban ba u fuulo muxuu ahaa dee qorshayaasha degmada maxaan ku dhahay miisaaniyadeeda qorshayaasha kaga maxaan ku dhahay oo ku darsado yaan guddoomiyahana faraynaa waxa kale oo halkan uga mahadnaqaynaa hablaha walaal maxaan ku dhahay walaalaheena muxsiniinta ninka jaamiciga Suudaani ka soo baxay maxaan ku dhahay nafaqadiisii ballan qaaday halka yimid iyagana waanu mahadnaqaynaa dhammaan cid kasta wax bixisay ama kuwii sheekha wax maxaan ku wax tareen noqotay ama masaajidkaas noqotay dhammaan walaalaha muxsiniintana waxaan leenahay jasaakallahu khayr halka ka soo saarteen ama ka bixisay ilaahay wax khayr badan oo buura ka weyn oo khayr ay nagu bedelo aadna waad u mahadsantiin horta kulley intii waxa yiri waa la iga horeeyo waa la yiri anoo waxaan ku darayaa wixii dhiman halkani waxa la yiraahdaa qabalaha kabanta waxay ka hadleen biyaha waa qodobka ugu muhiimsan biyuhu halkan caafimaad bay leedahay caafimaadku shaqaalaha hal qof baa joogaan Malaynia guddoomiyaha maanta waxaan ka codsanaynaa MCH-ka muxuu ahaay kabanta in muxuu ahaay shaqaale ku filan deegaanka oo u shaqeeya iyo wixii uu baahan yahay loo keeno anagu kolley muxuu ahaay Council Foundation ayaa u keenaysa muxuu ahaa oo guddoomiyaha oo la soo muxuu ahaa MG Group oo sido ayaa u keenaysa iyo sariiro iyo muxuu ahaay iyo furaashyo waxa markaa loo baahan yahay in muxuu ahaa hawsha muxuu ahaay guddoomiyaha degmada aan ka codsanaynaa inuu caafimaadka wixii ka dhiman qabaleega u keeno ta kale labaad iskuulka isagana wuxuu u baahan yahay inkaan joogno oo uu duusan yahay saddexda qole soo jeeda saddexdu way dubeen intan un baa jirta iyagana in muxuu ahaay dee loogu daro oo laga qayb muxuu ahaa dhismihii loo waxeeyo iyadana ma waxyaalaha loo baahan yahay maanta halkan in muxuu ahaa looga kulliyo marka hore waxa weeye maanta waxaan joognaa waa xafladii masaajidka iyo madrasadii jabanta marka waxaan halkan uga mahadnaqayaa anigu si gaar ah reer jabanta oo iyagoo ahaa aasaasayaashii masaajidka hindisahana lahaa inay iyagu dhistaan iyaga bilaabay qofkii hindisaha keenay baa horta mudnaanta koowaad leh oo aad waan ugu mahadnaqayaa reer kabanta inay qabsadaan inay masaajid iyo madrasad dhistaan tulkooda uu la garab galay qurba joogtii dibadda joogtay gudi iyo dibadba dadkii wax ka geystayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahayna miisaanka xasanaadka haynugu daraan leenahay waxa weeye cabashada ugu ballaaran iminka halkan laga sheegayaa waa biyaha magaalada kabanta
biyahana hadday dadka waxaystay dadkan u dhashay ay tahay hadday dawlad tahay dhan kastaba waxaan ka codsanaynaa inay meesha biyo sidii ceel riiga loogu soo saari lahaa awooddeeda in dawladduna in lagu hadleeya maahee innaguna aan isku tashanno sida masaajidka haddii wax la bilaabo masaajidka iyo madrasadda meel baa laga bilaabay waynagaa dhammaystirnay wax walba uu dhammaystirmayaa haddii la isku duubnaado la isku kalsoonaado dadku meel dhinac tashwiish aan lagu furin shaqada dadkeenu imika wuxuu u batay in tashwiish ninkii wax aad samaysid yidhaahba in tashwiish lagu furo tashwiishka inaan iska dayno wixii dan inoo ah dadkeena dan oo ah mujtamaceena dan oo ah alxamdulilah rabbil caalamiin qobjoog waxaan leeyahay wax badan bay qabteen dugsi sare noo dhiseen macallin quraan bay noo sameeyeen tani uun maaha araabi bay ka dhiseen waxay ka dhiseen iskuul hoose dhexe wadax bay ka dhiseen waxay ka dhiseen sheekh baxay gajeeji bay ka dhiseen allah ina barakeeyo oo safrita laga qaada haddaad tii qobjoogii wakiilka ka jooga waxaan leenahay ducada maanta nu gudbinayno dadka laga gaarsiiyo alxamdulilah waxaan leenahay allah ina barakeeyo hawshuna intaa inagama ekee soo biiriya maanta farax weyn bay tahay horta markii ugu horreysay xuduudka ka soo tallaabaano waxaan arkay maasha allah aad baan ugu faraxsanahay sheekh xuseen masaajidka iyo malcaamadda in badan baan arki jirnay maab uun laakiin maanta waxaan arkay isadii oo dhisan wax ilaahay lagu mahadiyo weeyaan waana ku soo tukaday maanta waa intaana waan gaarsiin doonaa insha allah dadkeennii waxaan soo arkoo kale inaad dadaalaysaan oo aad dhisateen xanaano ku taalla ama xanaanada hooyooyinka waxaan idinku ballan qaadayaa maanta inaanu idiin keenno 2 sariirood oo kuwii umusha ah insha allah haddii la idhaahdo weliba sida ugu dhaqso badan insha allah oo aan yaabow soo dhiibi doonno meel kastoo ay joogaan kuwii halkan ka bilow xoolaha laga ururshay ee hortaba seeska bilaabay iyo ilaa intii kuwii kale soo gabagabeeyentaba intaa horta jasaakumullahu khayran baan odhanayaa mid kalena waan odhanayaa waqtigii ay yareereynayno annagu aan dhulkan joogi jirnay ma ay jirin meel qur-aan lagu baranayo noloshayda hal mar baan xasuusanahay oday aw cabdi cali ardel odhan jiray inanoo dhalay isagoo habeenkii dhiga annagoo la degan kuwa iyagii xitaa xoolaha la jiray la dhigta qur-aanka la nugmaan odhan maanta waxaa jooga nin aqoon-yahana jaamacadaha afrika ugu qaalisan ka soo baxay waxa weeyaan saasoo kale soo bartay ayaa halkan jooga marka waxa la iniga baahan yahay war qofka walowba xilligii aad haleeli karto inaad dhigataan oo quraanka ka faa'iideysataan oo aad diinta barataan waa shay maanta la iniga baahan yahay gaaban darteedina wax badan la yiraahdo maahin laakiin aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta tolkayga dhex joogo talabaad aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan markasta oo imaado saladii soo dhaweysaan doorkii hore qodax baan joogay maanta halkan aan joogaa laakiin waxaan oran lahaa markii hore magac weyn iga qaldanayo jaban aad haydeen kaban taaban maanta ku fiicantiin baan u malaynayaa marka waxaan rajaynayaa maanta khayrku inii bilaabmay masaajidkii baa jira madrasadii baa jirta maasha allah walaalkayo aad iyo aad u cod macaan oo diintii inii hayaa jooga waxaan rajaynayaa oo nigu dardaarmayaa khaasatan hooyooyinka inaad kula dadaashaan awlaadiina inay cilmiga ka faa'iideystaan aad iyo aad baan maanta u faraxsannahay waan ooynay xitaa farxad daraaddeed sababtoo ah Soomaalidu waxay tahay ninkii magaca garanaya madqadaada koriya meeshaan ku dhalanay maaragtaani aniga khaasanaan ku dhashay dadkii dhalay dadkii la dhashay iyaan maanta u yimid alxamdulillah rabbil caalamiin oo muddo ka maqnaa marka farxadayda lama soo koobi karo hadal yaanan badinin waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta inaan madrasadii Ilaahay baa ii qadaray shalayna markii suldaanka maaragtaani maya aqalka maaragtaani la siinayay baabuurka furihiisii maantana inaan maaragtaani madrasadii iyo masaajidkii aan imaado alxamdulillah rabbil caalamiin aad baan ugu faraxsanahay saad noo xishmayseen saad noo weynayseen saad noogu qiimayseen aad iyo aad buu tolkay waxaynu isugu nimidnay inaynu furno beyd ka mid ah beydadka Ilaahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi innamaa yacmuru masaajid allaahi man aamana billaahi walyowmi alaakhir isagoo dadka masaajidada camiraya uga markhaati kacaya inay yihiin kuwo iimaan leh insha allah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa dadka deegaankan jabantu inuu ilaahay kuwa ka yeelo kuwa masaajidka camira ilaahay ka yeelo walaalka ku soo tabarucay cilmigiisii iyo waqtigiisii iyo diintiisiina inuu ilaahay miisaanka xasanaadka uu ugu daro ayaan rajayn waxa weeyaan bilaadanku markuu wax qabsado ayaa wax loogu daraa waad arkayseena maanta nimankii taariikhda masaajidka ka sheekeeyey in markii ay wax
wax soo qabsadeen dadkii deegaanku dadka ay ula qaylo tageen wax loogu daray nin wax haystaa wax loogu daraa anigu kelmaddaa biyahan mid odhan lahayo waar marka ugu haddaad xataa ceel yar qodaan maaha haddaad wax barkadu ay qodaan 10 sibir iyo 10 dee ciida la waayi maaye awalan horta idinku wax qabsadaan leey dadka deegaanku sidii noo sheegeen mas'uuliyiinteena noo sheegeen waxay noo sheegeen in iyagu aas-aaska lahaayeen aas-aaska waxna loogu daray oo dhammaan qurbo joogtii iyo dadkii deegaanka ka soo jeeday haddii Soomaaliland noqoto haddii qurbaha noqotoba ay ugu soo kordhiyeen wuxuu wax ugu kordhiyeen halkaa taasi waxay noo cadaynaysaa in midnimo isku duubnida iyo wada qabsigu ay leedahay faa'iido weyn oo farqi fool ma dhaqda la yiraahdo isku duubnideena aan meel heer ku gaari karno inagoo isku duuban oo wada qabsanayna ku miyi jooga iyo ku magaalo jooga iyo ku qurbaha jooga dhammaanteen taas inta marka waxa weeye waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro wixii ay soo bixiyeen waxaanan ku sii boorinayaa oo ku dhiiri gelinayaa in ay hawsha halka ka sii wadaan waa gacan weyn oo ilaahay uu ku kabayo diinta shalay mayna jirin arrimaha noocaasihi xaaladaha isbeddelku waxa weeye maanta meel fiican ayaynu joognaa isbeddelkaas inaynu ka faa'iideysano oo inaguna soo dhaweyno cidii miisaaniyadeeda gashanaysa dhulka khayriga ah ee sadaqatul jaariya lagu tilmaamay in aynu soo dhaweyno oo aynu maxaan ku ugu baaqno wax inagana ina saaran weeye iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha waafajiyo hawsha inay halka ka sii wadaan mana aha hawshii ugu horeysay ee ay qabtaan kuwa hore oo ay qabteen baa jira kuwii ugu dambeysana ma noqonayso ee waxaanu rajaynaynaa in ay ka sii badiyaan oo meelaha ay qusayso iyo dhulka islaamku uu degan yahay gaar ahaan degmadeenna in ay xoogga saaraan insha Allah ay kala tashadaan kolba baahida diintu halka ay jirto dadka jooga iyo cidda ay khusayso arrintaasi annagu laakiin cabashadiin waan qaadanay imika kamantaan cabashada noo soo gudbiseen ka degmahan waan qaadanay laakiin annaguna waan igu dardaaranay inaad dhistaan qabaleeyo walaalahayaga sharafta leh ee qurbo joogta xildhibaanada xagga noogu yimid ee mucaawanada ka geystay mashruucan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin walaalahayaga kale ee Soomaaliland iyo garaadada iyo aqoonada iyo aabayaashii suldaanada dhammaan iyaguna waan u mahad celinaynaa sida sharafta leh ay walaalahooda ugu soo gurmadeen ay hiil iyo intaba ula garab istaageen waa mid aad iyo qurbo joogtana waxaan leeyahay horta Allah idin la jiro intaad qabateen Allah inaga abaalmariyo waxaan leeyahay laakiin dadaalka aad muujisaan oo dhacayga markaan ka eego kowna ma joogtiin kowna ma joogto abada ma ina dhiman sababta wax qabadkiya baahidu halkana joogniya laba meelood oo kale ama sax oo la soo sheegay ma baahi badan baa jirta waxaa tiin qurbo joog deegaanka u dhalatay gobolka u dhalatay degmada u dhalatay ee qabaleen kaliya joognee ee kabanta ma marka inta kale waxbay niga sugayaan hadda gudoomiyaha doctor wuxuu noo ballan qaaday maxamed dambal inuu yimaado oo degmadana la yimaado wixii degmada ka jira baahina uu nala arko aad buu ugu mahadsan yahay waan soo dhaweynaynaa waxaan waan ku baahanay kaalay adiga tiimkaagaba inaad wax nala qabatiin diyaar baan u nahay meel kastoo baahi ka jirtana wixii itaalkiina id qaban karaysiin annagu waan nugu soo dhaweynaynaa waana layniga baahiya waana dadkiinii meel kastood soo gaari kartiin waxaan le aad baad u mahadsantihiin